كان سوق يبدي كورة يبدي مقع jibriil yoonis إلى كهذا الله أرنتها هديلا دعضها ما أنت دويد عضي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وعلى هاي يوم مقع jibriil yoonis أقوى الله له لكا سلطان wabar وما دوران inuu jabhad noqdo uma annaan dooran inuu dilaa noqdona uma annaan dooran in dad la boobana uma annaan dooran suldaan dadkiisa haddii la dhahdo wax alla waxay u baahan yihiin u doona miiska dushiisa ku xisaabtama hadday wasaare tahay hadday madaxtooye tahay intaba la xisaabtama wixii dadkiisa maqan u raadiyaan u doorannay wax alla waxaa imika uu ku jiro uma annaan dooran uu ka baxay wixii aan u doorannay waxaan leeyahay jibriil kuguma raacsanaa waxaa kumala dooranay iska daa ka soo hoyo dowladda iyo dadweynahana aan kuu weydiinno isticfaaf biyaan kuu soo diraynaa naga aqbal inaan intaa ku weydiinana diyaar baan kuugu nahay aad ka soo noqoto wax alla waxaa imika aad ku jirteenaan annagu kuu dooran wixii aan ku dooranina ku soo noqo hiddihii dhaqankii ku soo noqo xeer dhaqameedkii ku soo noqo wixii naga maqan oo ku xisaabtanna ku soo noqo sidaasaan kugula talinaynaa sidaasuu ballanka iyaga iyo haddii la dhado taladayadanu ay tahay oon ku faraynaa oon ka hadlaynaa oo waajib ilaahay na duldhigay aan ka hadlaynaa suldaanka iyaga han doorannay ee magaca jibriil yoonis han u doorannay ee sidaan u doorannay la ogaa halka maanta uu marayo iyo wuxuu nagu tilmaamay baan ka hadlaynaa haddaan jibriil yoonis nahay suldaanka gadabursi xore uma annaan dooran dhul gadabursi oo ka maqan doon ma annaan odhan waxaan nidhi cimaamada iyo koofiyadda waxaan u saarnay waxa ummadda ilaahay leedahay ee soomaalidu leedahay ee dhaqana inuu nagu hogaamiyaan u doorannay hadduu ka baydhay oo hoggaankii uu ka baydhay cid markuu baxayey tolkii uu la tashadayna ayna jirin uu iskii u baxay maantana uu leeyahay tolkaybaa ila socda odayadaydibaa ila socdaa uu leeyahay aan nahay kuwii doortay baan nahay annagu kuwa maanta yimiday ma nihin kuwii markii la dooranayay aasaaska ilaa bilowgiisii goobjoog ka ahaa baan nahay suldaankayaga waxaan leenahay wixii aan kuu doorannay waad ka baxday waxa aad ka baxdayna kugulama soconno haddaan jibriil yoonis nahay wixii aan kuu doorannay ku soo noqo soomaalilina waxaan leenahay annaku jibriil yoonis baana la yidhaa waxaan nahay ummadda ilaahay baa noog dowladnimadani maanta dadka dee danta ku qabaayay hawboodboodsiinayo dadkii sameeyey baan nahay inta ilaahay ku sokaysa aqalkan shalay dhisnayna maanta ma burburin karno mana burburinayno magacayaga iyo sharaftayadaa ka weyn markaa waxa suldaankaasi sameeyo ee dhibaato uu keeno annagu kulama jirno haddaan jibriil yoonisna kulamana aanaan dooranin umana aanaan dooranin hadda imikana raalli kama nihin dadka gobolka degan uban annagu odayaashiisa ka mid nahay wanaagga hadduu keenana waa suldaanka iyagii xumaan hadduu bashaysana xumaantaa shaqo kuma lihin sidaasaan annagu go-aanka jibriil yoonis magacii jibriil yoonis anaa ku hadlaya oo anigoo ah maxamuud cumar cadaawo weliba go-aanka iyagu waa sidaa hawshaa suldaanka ka timiday ee dhibta ah ayaan shirka jiraa'id ku saabsan yahay anigu waxaan ahay guddidii isagaa u ballan qaaday nabadgelyada dowladdana ballanta la gashay guddoomiyaheedii baan suldaanka waxaan la soo gallay raggii u tegey baan aha 21 odayoo jibriil yoonis ka kooban baan ugu tegnay ballan baan la soo gallay waan isdhaarsanay ballantii baan Soomaaliland la galay oo
la galay maamulka gobolka iyo ka degmadaba dawladdiina way gaadhay marka sidaa darteed annaga oo taladii ku maqan dawladda sarena way gaadhay macnaha ugu tahay dawladdiina way gaadhaan leh macnaha dawladdii gobolka iyo tii degmada markaan hawsha u keenay dawladda sarena warkaasi iyadaaba kuwana ka wakiila sidaa darteed ballantii wuu ka baxay suldaanku annagu ragga dhibanaha abaan nahay ee imika loo haystay kiiskii kadib haddana markii hawshu dhacday jibriil markuu isku yimiday hadduu wax garad lahaa iyo hadduu cid walba ahaa in mar labaad lagu noqdaba haddana la qorsheeyey haddana ragga loo diray baan anigu ka mid ahaa anigoo guddoomiye telefoonna waan ka weynay ninka ma garanaysaa suldaanka ergooyin baan u diranay hadalkayagii wuu gaadhay wuu iska diiday inuu nala hadlo la kulan daayo wuu diiday inuu nala hadlan marka waxaan caddaynaynaa warkii uu ka hadlay ee ku hadlay ee yidhi odayaasha ay kula socdaa kulama soconno annaguna dilay ballantii aan la soo gallay buu nagu dilay ballantii aan dawladda u keennay baa nagu beenowday odaya been sheegay baan noqonnay sidaa darteed suldaankaay waxa uu wada iyo waxa uu sheegtay midna kuma raacsan umana dooran aanu isaga waxba fariin uma dirayo alla wax fariin oo u dirayaa ma jiro ballantii aan shalay la galay bii kaga baxay oo igu dilay ninka uu yoolka saaray baan anugu shalayna waan doonay warkaygii baa gaar aarila hadal baan idhi wuu iska diiday waxba fariin uma dirayo ninkaa uu ka baxay wixii aan u doorannay hawshaay wixii kale isagu yeeli annaga nama qusaysa haddeed kumana raacsanin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jibriil yoonis halkan maanta hadduu isugu yimiday oo suldaanka halkaa joogaha laga taliya la yidhi in waxaa fiican haddii aan la yidhaa suldaanka annagu wax kaloon odhanaynaa ma jiro suldaanka yagii baa tahay waxaan kuu dooranay inaad na hoggaamiso inaad waddankaa muxuu ahaa suldaanada kale aad ahaato inaad howlkaa wax la qabato ood hor kacdo inaan kuu dooranay halkaa kumaanaan dooranay marka u horraysa tashaan ku leenahay ka tasha halkaa howlkaa ka tashay ku yidhaahdeen in jibriil yoonis lagu burburiyena magacaagana ma doonayno haddii samaroon loo dagaalamayo salaadiinta kaleo dhan inaa tagaan way wada joogaan salaadiinta kaleo dhan ha kuu yimaadaan suldaan waliba reerkooda ha horkaco laakiin yaa lanoo rabaqin oo lana odhan muxuu ahaa jibriil yoonis yaa halgamaye haddii halgan la doonayo gada bursi uu kugu jecel yahay salaadiintoonu ka dhan ha ku raacdo ninkaa suldaankaa annagaa boqornay ahayd annagaa doorannay wixii aan u doorannay wuxuu ahaa arrimaha dhaqanka laakiin annagu jabhad uma dooran indada ulaayo uma dooran dhibaatooyin waaweyn buu ummadani jibriil yoonisa soo gaarsiiyo waa loogaa rag badan oo naqara waa kii la xidhay ee hargeysa lagu xidhay heshiisyaa la galay heshiisyadii isagaa ka baxay ummadda somalilan waxaan leenahay annagu haddaan nahay beesha jibriil yoonis waddankan madaxweyne xigeen baan ka noqonnay madaxweynaan ka noqonnay waxaan idiin sheegaynaa meel madaxweyne aan ka noqonnay oo annagu aan dhisnay ma duminayno ninkaas suldaankiina waxa uu sheegayo ee jabhadnimada ah kuma qabno wax naga maqan oo samaroon ka maqan oo annaga naga maqan gaar ahaani ma jiro madaxweynaha baan ka noqonnay waddankan marka annagu dadka ugu dambeeya haddii wax la duminayo ayaa noqon doonaa laakiin annagoo madaxweynaha oo waddankan dhisnay beesha somalilan dowladda somalilan waxaan u sheegaynaa ninkaasi annagu waxa uu sheeganayo kulama qabno waan ka tegnay go'aan ah inaan maanta haddii aan nahay dhallinyaradii salaadiintii waxgaradkii aqoon-yahankii beesha jibriil yoonis aan halkan ka caddayno hawshii uu suldaankayagu uu duurka u galay ee uu habeenkii dhoweydna eedda nagu soo leexiyo uu yidhi odayada iyo dhallinyartu way nagula socdaan inaanan maanta aan halkan ka caddaynayno oon leenahay suldaankayagu hawshii aan u doorannay uu ka baxay hawshaa dagaal ama jabhad uu ku jirana kulama soconno
annagu waxaan u dooranay suldaankayaga inuu cimaamadii iyo koofiyadii iyo dhaqankii haw noo sido laakiin umanu dooran inuu maaragtaanay buurta galo oo uu qori qaato suldaanna waa laga fiican yahay wixii qori qaata annagoo danahayagii iyo hawlo badan u seegnay oo maaragtaanay dagaalkaa ku seegnay waxaan halkan maanta ka caddaynaynaa annagoo u dhan kolkaan hawshii ruugnay inaanan maanta laga bilaabo hawshaas ay isaga ku keli tahay